La 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 la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن إذ لهان والدين تشرفت بدن يا أرضي إذا قيمة بدنه. وعشر كني جلس 7 إنه بلن قادني إنه سيرو مقال يوم وقال إنه صدوا بدونه. مركيان إيجي معقول إن اللقون ويدي إن 10 كيسو صبران سيدي إنه صاع عضيو. 10 كانوا نقضي 10 آد مهمة أو يكون فايدة سنكران أرضي والد يبل شوين تكلا ومد الصومالية بها. وحينو أرضي كسو هالليني إنه كسو دحجرني 10 كاني صانكا أو هاتنا إنه سو قارني قنتي جبدي 10 كاسي. وحين صبرني صانكي وحين صبرني عدو واجب كوها وحين صبرني شروطه سي ما أنت وحينو مرينا dadka cudurdaar kale ee Ilaahay u ogolaaday inay bisha barakaysan ay iyagu iska afuraan ay wax iska cunaan soonkana ay dib u qaleeyaan ama ay cid masaakiin ay wax siiyaan hadba saynu halkan ku ogaan doonaa insha Allah taala arday sida 10kiina ka muuqata ciwaan hoosaadka ay ku qoran tahay acdaar asiyam dadka cudurdaarka soonka u leh waxa idin muuqda 5 qodob شنطة قضب أندل مرو والمريض قفكي حنوسيني عذر دار بولي هاي ويرون كلا عدين دون هدي ربي يدمو المسافر قفكي مسافر كاها الحائض والنفساء أو أيوغارا دمركي قبردي ديق لهايد أما قبردي شاهدة ديق دلمد لهايد الكبير وقفكي وينا إدى ذاها إيو الحامل هو يدي إلمها علوشة كسيدي والمرضع iyo hooyadii ilmaha naaska siinaysay dadka Ilaahay cudurdaarka u siiyay oo 5 qof weey adbaan sharaxaad guud aynu galno almariid qofkii xanuunsanay qofka xanuunsanay arday waxa uu kala qaadanaa 2 qaybood qofkani ma wuxuu xanuunsanayaa xanuun aan la rajaynin inuu ka bogsado mise waxa uu xanuunsanayaa xanuun la rajaynayo inuu ka bogsado qofkani hadii uu xanuunsanayo xanuun aan la rajaynin inuu ka bogsado qofkaasi waxa waajib ku ah la yiri in uu masaakiin uu quudiyo oo isaguna iska cuno cuntadiisu iska afuro masaakiinta markaa muxuu siinaya uu ku quudinaya wuxuu siinaya oo waajib ku ah nisfi saaca weynagii hore soo dhiganay waa 2 kiilo iyo badh 2 kiilo iyo badh raashina marka laba loo kala qaybiyo maxay noqonaysaa 2 kiilo iyo badhkaas xisaabta kulli waa taqaanaane waxay noqonaysaa 1 kiilo iyo rubuc 1 kiilo iyo rubuc marka 1 kiilo iyo rubuc raashin ayuu bixinay raashinkaasi waa ku wadanka uu joogo qofkaasi laga quuto weey inaga wadanka maxaa aad looga isticmaalo aad aan u cunna bariiska kaasad marka qofkii siinaysa marka qofkaasi waa qofkii aan xanuunka ka kacayn been niri ka waraba qofka hadii uu la rajaynay xanuunkiisa inuu ka kacayo isaga waa uu iska furaya cuntadana waa iska cunaya marka alla marka uu bogsado ayuu soonkiisa soo qaleynaya inta weeyaan isaga xukunkiisu qodobka labaad المسافر وقفكي مسافر كها وقفكي isagoo jidka ku jira ama toobiyaha ku jira ay bishii barakaysnada Ramadaan soo gashay maxaa la yeelaya waxaan qofka musaafirka Ilaahay isagoo wuxuu u baneeyay 2 arrimoodba inuu iska cuni karo cuntadii oo mar alla marka uu soonkiisa dhamaysto uu dib soonkiisa soo qaleeyo iyo inuu soonkiisa iska sii wato laakiin isagu masaakiinna waxba siin maayo cidna waxba siin maayo laakiin bisha barakaysan Ramadaan hadii ay safarka iyo musaafirnimada ku dhaafto dib buu soonkiisa ugu soo qaleynaya Ilaahay baan isaga u fudeeyay qodobka saddexaad waxa weeye gabadhii dhiiga lahayd ama gabadhii mushahida dhiiga dhalmada lahayd iyada waxa ku waajiba soonku inay soo qaleyso soonkuna iyada waa ka xaraan aan idhaahdo labada dumaraba
soonku waa ka xaaraan soonkana waa ay soo qallaynayaan soonku waa uu ka duwan yahay salaada dumarku ma ay soo qallayn jirin marka ay xaaladda ku sugan yihiin laakiin soonka inta cisho ay xaaladda ku sugan yihiin ee dhaafta dib ayaa ay u soo qallaynayaan qodobka afraad waxa weeye qofkii weynaa ee da'da ahaa qofkii weynaa awoowo ama ayeeyo ee gaboobay laakiin caqligaas ka lahaa macnaha ee caqligoodu taamka ahaa uu dhammaystirma iyaga maxaa haddaba laga yeelayaa bishii barakaysnayd awoowo waxa uu samaynayaa waa uu quudinayaa masaakiin ama ciddaa ka mas-uulkaaba miskiinka quudinaysa oo raashinkii 1 kiilo iyo rubuc ahaa ayaa laga bixinayaa dibna uu soo soomi maayo saasuuna isaga cuntada iskaga cunayaa isagu waa iska furayaa soonna laguma leh masaakiinta buu wax siinayaa isagu qallayn male markaa qodobka ugu dambeeya aynu ku soo gabagabaynayna ardayda waxa weeye alxaamil hooyadii ilmaha caloosha ku siday ee xaamilada ahayd iyo walmurdic hooyadii ilmaha naaska siinaysay tan haddaba xukun gooniya ayay leeyihiin labada dumari waa aynu kala qaadaynaa hooyada ilmaha naaska siinaysa iyo hooyada ilmaha caloosha ku sidaaba culimmadu waxay yidhaahdeen fiqigu laba ayaynu kala qaadaynaa labadaa hooyo haddii ay naftooda u baqaan macnaha soonkaa bisha barakaysan ay soomayaan haddii ay isiraahdaan haddii aad soontaan bisha barakaysan idinkoo xaaladan ku jira waxaa laga yaabaa inaad ku xanuunsataan ama waxaa laga yaabaa inaad hoosu dhacweyne kugu yimaado ama aad nafteedii hooyadaasi u baqato waxa ay samaynaysaa miskiin ayaa ay quudinaysaa soonkaana laguma le oo hadhow soo qallayn mayso waa haddii ay hooyadaasi nafteeda u baqatay weeye haddii ay nafteeda u baqatay maxaynu nidhi masaakiin bay afurinaysaa oy afurkii siinaysaa iyo raashinkii hadda aynu soo sheegnay dibna u soo soomayso soonkaa laguma le laakiin haddii ay hooyadaasi labadaa waalid ama labadaa hooye haddii ay u baqaan ilmahooda oo ilmaha yaree caloosha ku jira ama ilmaha ay naaska siinayso ay u baqdaystira haddii aad soonkaas soontaan waxaa laga yaaba ilmahaasi inuu naaska caana ka waayo ama uu wax uu jaqo waayo ama ilmahaasi ku dhibaatoodo calooshaada ku jira haddii ay ilmaha u baqaan xukunkoodu tii hore waa uu ka duwanaanayaa waxa ay samaynayaan soonkaa waa ay soo qallayn doonaan marka inta ay ilmaha wax siinayeen ee ay ilmaha u baqeen inta soonkaasi dhaafay waa ay soo qallayn doonaan masaakiinna maalin kastoo ay afurto waa ay quudinaysaa markaa mar kastoo ay afurto miskiin ayaa ay quudinaysaa inta soonkaa ka tagtana hadhow waa ay soo qallaynaysaa halka laakiin xukunkii hore ahaa marka ay nafteeda u baqaysay inay masaakiin uun wax siinaysay aan laakiin qalla soon ama inay dib u soo qallaysa aan lagu lahayn ardayay casharkeena inta ayuu ku dhan yahay intaasi waxa weeyaan gunti iyo gabagabadii casharkeena soonka aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo dambe oo xiise leh La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي